السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadli doonaa asxaabigii la odhan jiray Cumar bin Caas iyo taariikhdiisii oo aad u kooban. ugu horeyn abtirsiintiisa oo dhammaystiran waxay ahayd Cumar bin Caas bin Waa'il bin Haashim bin Saciid bin Sahm bin Cumar bin Hasiis bin Kacab. waxa uu dhashay 45kii hijriyada amba 592kii milaadiga, waxaana uu ku dhashay Makka. hooyadiina waxaa la odhan jiray Naabiqata bintu Khusayma bin Xaaris bin Kalthuum. haddaba asxaabigan aadka u qiimaha badan taariikhdiisii haddeen dib in yar u jalleecno waxa aynu u kala qaybin doonaa laba qaybood. qaybi waxay noqon doontaa intii aanu islaamin ka hor ee uu gaalka ahaa, qaybna waxay noqon doontaa markii uu islaamay kadib, waxaana aynu ka horreyn doonaa intii aanu islaamin ka hor. waxa uu ahaa Cumar bin Caas mid ka mid ah madaxweyntii Quraysheed waqtigii jaahiliyada. aabihii Caas bin Waa'ilna waxa uu ahaa ganacsade weyn, waxaana uu ula safri jiray ganacsigiisa Shaam, Yaman iyo Masar. waxa kale oo uu la safri jiray dhulka ay Xabashidu degto. haddaba Cumar bin Caas waxa uu ka mid ahaa fardafuulka ama dagaalyahanada Quraysh ay leedahay, waxaana uu aad ugu sheeganaa garaad badnaantiisa. isla markaana waxa uu ka mid ahaa raggii loo diray boqorkii Xabashida ee Najaashi si uu u soo celiyo dadkii muslimiinta ahaa ee ka baxsaday dhibaatadii ay ku hayeen reer Quraysheed. Cumar bin Caas waxa uu ka qayb galay dagaalkii Badr, Uxud iyo Khaybarba isagoo gaal ah. haddaba markii ay ku soo noqdeen gaaladii Quraysheed Makka kadib heshiiskii Xudaybiya ayaa waxa uu tagay Cumar bin Caas dhulka Xabashida, waxaana uu la kulmay boqorkii Xabashida. haddaba markii uu arkay boqorkii oo diinta Islaamka qaatay ayuu isaguna xaggaa ku muslimay, isaga oo jooga dhulkii Xabashida sanadkii 8aad ee hijriyada, waxaana uu soo raacay doon u soo socotay Madiina. intii uu soo socdayna waxa uu dhexda kula kulmay Khalid bin Waliid iyo Cuthmaan bin Talxa. saddexdooduna waxay soo galeen Madiina iyaga oo ku dhawaaqaya islaamnimadooda iyo inay muslimeenba. haddaba imika waxaynu u gudbi doonaa islaamnimadiisii iyo wixii ka dambeeyey. Cumar bin Caas waxa uu ahaa hogaamiye aad u garaad badan oo xeel dheer, waxaana uu ka mid ahaa 4tii hogaamiye ee furtay dhulka Shaam, isla markaana waxa weeyaan hogaamiyihii furtay Masar iyo mas-uulkii ugu horreeyay ee xukuma markii la furtay kadib. haddaba Cumar bin Caas waxa uu ka soo wariyay nebiga tiro lagu qiyaaso ilaa 40 xadiis. Bukhaari iyo Muslim waxa ay isku waafaqeen 3 xadiis. Bukhaari waxa uu la khaas noqday 1 xadiis halka uu Muslimna la khaas noqday 2 xadiis. garaad badnaantii Cumar bin Caas. waxaa lagu yaqaanay Cumar bin Caas garaad badnaantiisa islaamka ka hor iyo kadibba, ilaa iyo ay carabtu la baxeen daahiyatul carab oo macnaheedu yahay kii carabta ugu garaadka badnaa amba maskaxdii carabta. waxaana uu ku naanaysay Cumar bin Khataab dagaalkii Ajnaadiil Ordoboon, waxaana uu yidhaahday laqad ramaynaa Ordoboon arruumi biordoboon alcarab, oo looga jeedo labada nin ee ugu garaadka badan leh cidda ay kasoo kala jeedaan. dagaaladii uu galay Cumar bin Caas waxa ay kala ahaayeen qaswatu Badr, qaswatu Uxud, qaswatu Khandaq, macrakatu Yarmuuk, waqcatu Safiin, fatxu islaamiyi limasr, fatxu islaamiyi lishaam wa fatxu islaamiyi lilmaghrib. haddaba ugu dambeyntii waxa uu dhintay Cumar bin Caas 43kii hijriyada oo waafaqsan 682kii milaadiga, radiyallahu canhu wa ardaah. guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ayaynu soo gaadhnay. fadlan haddii uu muuqaalku ka cajabiyo like gare, subscribe tana saar si uu muuqaalo badan ku soo gaadhaan, una sheer gare asxaabtaada cidda aad doonayso inay ka faa'iidaysato. intaas iyo goorta aynu muuqaal dambe ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.